waxaa maanta si rasmi ah looga furay magaalada Hargeysa shirkadda Horn of Africa oo ka shaqeyn doonta caymiska gaadiidka iyo alaabta kala duwan. Munaasabad kooban oo loo qabtay furitaanka shirkaddaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiro, bangiyada iyo xawaaladaha ka shaqeeya gudaha Somaliland. Munaasabadaasi koobnayd oo loo qabtay shirkaddaasi waxaa ugu horreyn ka hadashay Yusur oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee kambanigaasi. sidoo kale munaasabadaasi waxaa ka hadlay wasiiro iyo dad kala duwan oo dhamaantood taageeray isla markaasina soo dhaweeyay kambanigaasi cusub ee Horn of Africa. marka Somaliland waxyaabaha yara caqabad ku hayay waxyaabahaas ka mid ah oo ay dadka investors-ku had iyo jeer weydiiyaan yiraahdeen ma jiraan insurance company meesha, therefore kuma invest gareynayna hadayna company waaweyn jirin. sidaa darteed furitaanka shirkaddan Horn of Africa Insurance oo ku xidhan caymisyo adduunka mar walba waa la weydiiyaa su'aashaas waxa la yiraahdaa ayaad ku xidhan tihiin waxaan ku xidhannahay caymisyo dibadda ah oo ay ka mid yihiin African Re oo Africa oo dhan qaabilsan, kuwa regional qaabilsan oo East Africa, kuwa regional qaabilsan West Africa. waxa weeyaan had iyo jeer insurance waa regional, marka waa inaad regionkaaga horta marka hore ka raadsataa kambaniyo waaweyn oo maaragtay kula qaybsada maxay ahayd wixii dhibaato timaada. waayo kambanina keligii ma qaadan karo waxaas oo kale. annagoo qura maaha adduunka dhan baa sidaas insurance-ka oo dhan meel walba ay joogaanba xitaa kambaniyada ugu waaweyn insurance-ka waxay leeyihiin kuwa kale oo ay la qaybsadaan riska. marka annaguna saa darteed intaanaan bilaabin shaqada waxaanu horta soo xasilinay kambaniyada caalamiga ah ee la sheer garanayno riska ayaan soo sameynay. company marka la eegayo horta waxa lagu qiimeeyaa company-ga yaa maamula management-ka la eegaa lagu qiimeeyaa. haddii company-ga management-kiisu uu yahay weak ama shaqada aanu garanayn inta badan company-gaasi wuu fail garoobaa. Yusur aadan abraar khibrad badan bay leedahay dhinaca baananka iyo insurance-ka. horta arrintani caymisku sida horeyba loo sheegay dee caalamka wadan aan caymis lahaynin ma jiro. caymisku waxyaabaha waxa weeyaan mandatory-ga wax optional ah oo qofku doorta maaha. waana filayaa in arrintaasi ay hirgasho. doorka kalu leeyahay waxa weeye in sida maalka bangigu isugu geeyo la isugu geeyo riskiga amba khataraha. kaasi waa doorka insurance-ka khatar uu isu geynaya. haddii imika gidigeen baynu wada gallo insurance oo midkeenba bixiyo $10 bishii, haddaynu gidigeenba baabuurra wada wadano, haddii mid naga mida uu ku yimaado accident, wixii aynu meesha wada dhiganay ee isaguna wax ku lahaa baa lagaga bixinaya. qof kale hadday ku dhacdo waa sidoo kale. halkii laga yaabi lahaa haddii aanad caymis aanad ku jirin in $10 bishii aad bixisay ay kugu kici lahayd $1,000 amba $2,000. marka isaguna wuxuu ururiyaa oo qaybiyaa riskiga. xamse cilmi, telefishinka caalamiga ah ee Universal, Hargeysa.